mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay ka qayb galeen xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcadii 14aad ee ka qalin jibisay macadka Nuruddin ee magaalada Burco. Maxamed Cawad Maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyay. xaflad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcadii 14aad ee ka qalin jabisay macadka Nuruddin ee magaalada Burco ayaa maanta lagu qabtay hotel Dheere waxaana xafladaas oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi arday waalidiin mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta waxbarashada iyo waliba marti sharaf kale oo badan waxaana ardaydani maanta qalin jabinaysa oo tiro ahaan dhammaan 308 arday ay dhameysteen luqadda Ingiriisiga barashada saxaafadda kombiyuutarka iyo waliba caafimaadka waxaana ugu horeynba ka warbixiyay marxaladihii iyo asaaskii kala duwan ee dugsigani soo maray iyo ardayda maanta qalin jabisayba maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin Cabduladiif Sheekh Cusmaan Sheekh Maxamed iskuulo kala duwan oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo dabcan sare dugsiga Nuruddin waxa lagu soo kordhiyay gobolka Togdheer 26 Juun ee 2002 runtii waqtiga uu gobolka ka asaasanaana waa muddo dhowr iyo 10 sano ardayda ka qalin jabisay muddada dhowr iyo 10 sano waxay sano u dhaafayaan ugu yaraan ama haddaan soo qaato maximumkooda waxay noqonayaan arday tiradoodu gaadhayso 7870 arday guud ahaan marka la isku daro haddii aan ku daro 300 ee maanta qalin jabinaya arday sideed ku gaaraysa guud ahaan iskuulka ka qalin jabisay oo gobolka Togdheer iyo dabcan gobolada la jaarka uga soo waxbarasho doonta sidoo kale inta ay xafladani socotay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan macallimiinta dugsigaasi wax ka dhiga iyo waliba ardayda wax ka barata kuwaas oo dhamaantoodba ku dheeraaday heerka aqooneed ee dugsigani taagan yahay isla markaana ku tilmaamay inuu horumar weyn gaadhay sidoo kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ku-xigeenka duqa degmada Burco Maxamed Jaamac Xasan Xoday madaxda shirkadaha isgaarsiinta Telesom xubno kale oo isugu jiray waalidiin arday iyo marti sharaf kale oo badan waxaanay dhamaantoodba ardayda ku dhiirigeliyeen sidii ay dadaalkooda iyo aqoontooda ay u sii labalaabi lahaayeen waxaan maamulka u sheegay iskuulka Nuruddin nin walba ardayda aad wax u dhigto xilba ka saaran casharka markaad u dhigto waxa mustaqbalkiisa iyo ceebtiisa iyo xumaantiisa u jirta aad laga doonayo inaad ugu warato aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa kulamo badan baanu qaban doonaa wax weyn baan runtii sanadkan cusub doonaynaa inaan waxbarashada gelino waxaan doonaynaa deegaanka arrintaasi garabkiina iyo dhinaciina aanay ka celin aad iyo aad baa u mahadsan ugu dambeyntiina dugsiyada Nuruddin ee magaalada Burco ayaa iyagoo haatan kamid ah dugsiyada haatan sida firfircoon waxbarashada u fidiya waa Maxamed Cawad Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel Burco.